waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogto hambalyo oo habeenkii midowga koonfur iyo waqooyi kooda luuliya ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo naga dulqaaday cadawgii iyo gumaysigii dalka haystay xilligaas marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa insha Allah ta'ala ilaahay nabad ha ugu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo waxaa farxad weyn inoo ah in annagu caafimaad qabno oo nabad qabna aan isugu nimaano meeshaan falka ama xalfadda ka dhacaysa caawa quruxda badan degmada Doolow waxaan leeyahay halgankaas kuma imaanin si raqiis ah ama fudud halgankaas wuxuu ku yimid dadaal dheer oo la sameeyay fikir dheer dhiig loo huray iyo waqti la geliyey ayuu ku yimid iskama imaanin waxaan leeyahay awoowayaasheen sidii ay ugu soo halgameen dalkan waa in annagana maanta oo aan joogno wixii ay nooga tageen ay noo waagii dawladdan xasuusanaynay maya dawlad baa ka jirto dawlad inay ka jirtana way caddahay sababtoo ah meesha inta qofka fadhida ama sida xafladan loogu dhigay kama dhicin Doolow ilaa burburka dawladdii mana dhicin haddana waatan way dhacday habeenkii horena waan ka sheegay haddana waa sheegaya gobolka dawlad baa ka jirto waxaan kaloo iloobay gobolka dawlad baa ka jirto waxaan kaloo iloobay ummadda Soomaaliyeed oo dhan caawa meelay joogto waa u hambalyeynaya waxaan kaloo u hambalyeynayaa gobolka Gadeeya inta joogto waxaan kaloo u hambalyeynayaa degmada Doolow oo sharafta leh caawa saan u maamuustay xuskii kowdii Luulyo oo lagu xoroobay Soomaaliya hadhicin hadhumin wadankaadii Soomaaliya hadhicin hadhumin hadeelinin wadankaadii watanu noo dhisnaada calankeeni wadankaadii warmarataan raagoonada la soo faydo hibadiyo qalbiga iyo haddaan heesta soo faago alla waan hilooba Soomaalida halyaygeediya warmarataan hiloogoonada la soo faago haasawaa iyo hadalka waan ku sii fogaadaaye heestaa loo qaadaaskayga halyayge hawshan loo haye waxaa jirto 1960 habeenka gowda luuli calankaa la saaray duurkaas hadda meesha hormuud deganta 11 saac iyo barka markay yahay dhammaan dadka intaan waa ka yaray meesha iskugu tagay ciyaaraha ka dhacay meeshaas ilaa 6 saac waa la ciyaaray ciyaaraha kala gedisan oo hidaha iyo dhaqanka marka waxaad yeelaysaan munaasabadaha marka la yimaado ciyaarahaas hidaha iyo dhaqanka waa loo baahan yahay in aad muujisaan
waxaa farxad ah oo aan xusaynaa oo rabnaa jiilka annaga naga horreeyeen ayna soo gaarsiiyeen maanta inay ahayd caawo habeenkii calanka Soomaaliyeed koonfur iyo waqooyi la isu keenay dushannadana uu ka babaday aan dunida guudkeedana ku noqonnay dawlad jirta oo xuduudeeda iyo maqaamkeeda iyo dawladnimadeeda adduunka uu aqoonsaday ilaa maantana farxadii ayada ahayd iyo reereyntii dadkaasu ay dhiigooda u hureen inkastoo 30 sano oo jaamaca galnay oo lagu soo ciyaaray laakiin haddana aad moodo inay hadeer wadadii cagta saartay dawladnimo aan rajaynayno inay mar labaad noo noqoto cagaar insha Allah taala intaa kadib caawa aniga hadal badan inaan dhaho ma rabo waxaan rabay inaan idin iraahdo waxaa maqlayseen ayaantan oo munaasabadahan ku soo aaday in baarlamaanka dawladda federaaliga Soomaaliyeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ay u asteeyeen maqaamkii Muqdisho 13 matalaada inay yeelato baarlamaankuna uu meel mariyay annagana waxaan rabnay caawa reer gada ahaan inaan hooyadii Soomaaliyeed Muqdisho maqaamka iyo matalaada la siiyay aan taageersanahay arrintaasna in loo istaago loo sameeyaan u baahanahay taageeradana aan muujin waxaan u sare taaganahay inaan taageerno 13 matalaada Muqdisho oo la mahadcelino baarlamaanka Soomaaliyeed ummadda intaa la eg oo hoyga Soomaaliya isu keentay inaan taageersanahay inaan baarlamaanka naga garab taaganahay inaan go'aamada quruxda badan oo uu qaatay ku adeegsanahay waa mahadsantiin fadhiista aad oo mahadsantiin kaleetaahi aysan ma garanaysaa isaa u sharaf badan u qurux badan u agaasiman aanan hadeer iyo maaragtay aanan soo arkinin laakiin aad lambar 1 ka gasheen xalfadaha aanu gobolka ka soo dhigaynay ama soo maraynay taasna waan kugu mahadcelinayaa waadna ku mahadsantihiin sidoo kale waxaan shacabweynaha Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo dunida dacaladeeda iyo daafaheeda uu ka joogo oo ugu hambalyaynayaa habeenkan sharafta badan farxadda leh qiimaha leh Soomaaliya meel kastoo ay joogto dal iyo dibad magac iyo maamuus iyo sharaf ku leh u dabaaldegiisa midowgii aynu midownay gobolladeena waqooyi iyo gobollada koonfureed aynu ka xorownayna gumaystihii cadawga ahaa eena kala gumaysanayay sida Ingiriis iyo Talyaaniga sidaas la mid ah waxaan boorinayaa habeenkani sharafta badan ee 60 guurada inuusan ku imanin rayn farxad balse uu ku yimaaday dadaal ay muujiyeen intaan in ka yar ka aqoon yar ka ciidan yar ka tayo yar balse hadafkoodii taladoodii tayadoodii oo midowday baa waxay ku gaareen inay midoobaan
cadowgii gumaystaha ahaayee dul saarnaana ay iska dulqaadaan ilaahay baa ku mahadsan khaasatan waxaa ku mahadsan dadkii u istaagay halgamayaasha Soomaaliyeed ee magaca maamuusta ee sharafta ku leh Soomaaliya aad taqaanaan aan la idinka warbixinaynin hebel iyo hebel indhahaynin Joseph William Joseph Garasa